magaalada qoraxaad oo ka tirsan degmada baargaal waxay koonfur galbeed kaga beegan tahay baargaal waxayna u jirtaa qiyaas ahaan 80 kilomitir. waa degaan ballaaran oo ay ku xeeran yihiin reer guuraa aada u badan. caafimaadka iyo waxbarashada ayaa ugu muhiimsan nolosha aadamaha, waana goobaha ay ku baxdo sadaqadu. bulshada deegaanka qoraxaad ayaa gudoomay qalabkii lagu dhisi lahaa mc-ka suldaan ee magaalada qoraxaad, iyagoo aada u soo dhaweeyay arrintan una mahad celiyay dhalinyarada isxilqaamayaasha hiigsi iyo horumar oo barnaamijkaasi soo abaabulay, iyo dadkii wax ku bixiyay dal iyo dibadba, iyagoo ugu baaqay dadka muxsiniinta ah meel kastay dunida ka joogaan inay ka qayb qaataan dhismaha mc-ka suldaan ee magaalada qoraxaad. dadka deegaankana aad iyo aad bay arrintaas u soo dhaweeyeen uguna heelan yihiin wixii iyaga insha Allah biidhnillaahi alkariim xaqooda insha Allah biidhnillaahi alkariim deegaanka looga baahdo waa u diyaar, waa u heegan. dadka walaalaha ah barnaamijkan sida ururka dhalinyarada hiigsi iyo horumar aad baan ugu mahadnaqaynaa. dadka wax ku bixiyay rag iyo dumar dal iyo dibad meel kasta joogan iyaguna aad baan ugu mahadnaqaynaa. insha Allah biidhnillaahi alkariim waxaan leenahay hadii hawshu wali waa socotaa. maanta waxa weeye alaabtan baan soo gaadhay waa dejinaynaa hadii faan wala farka ma qodna. dadka insha Allah waxaanu muxsiniinta meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay ka qayb qaata dhamaystirka mch-ka qoraxaad. mch-ku waxa weeye waa garan ka dhaana, waxa weeye waa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. meelahan dee caafimaad hooyo ay dhalaan lahayn dhibta taalo xanuunka yaallo waxaan u maleynayaa hadii nin kastoo waalidaahi hooyo kastoo wax dhashay aabba kastoo wax dhalay wuu dareemayaa. ilmahaas waxay ama hadduu yar wax xanuun qabto ama hooyo umushay oo aan haysan meel mc-da oo inta la geeyo aan daawo laga soo siin karin, faleenba laga soo ri karin. alxamdulillah marka waxaan leenahay meel wax lagu bixiyo meesha ugu wanaagsan uguna habboon uguna qiimo badan oo sadaqa jaariya ah. ka deegaan ahaan waxaanu ballan qaadaynaa shaqo walbo dhinacaya ku soo toosta inaan waajibaadka gudan doono, si fiican u qabsan doono. idinkana waa idinkaga mahad celinaynaa mar hore iyo mar dambaba. hadeerna insha Allah biidhnillaahi alkariim waxaanu insha Allah ogeysiinaynaa inta dhiman in laga qayb qaato si insha Allah biidhnillaahi alkariim hawshu inuu ku soo hagaagto. waxaan kaloo insha Allah fariin farayaa isuduwaha gobolka Gaardafo oo caafimaadka ah Titor Jibriil, waa nin dhalinyaro ah iyo tiimkiisa. waxaan leenahay Titore hadii adiga isuduwa gobolka u ah iyo gudoomiyada caafimaadka degmada Baargal maama Istanbul, insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay kaalintooda ka qaataan wasaaradda insha Allah xiriir la sameeyaan si wixii iyaga insha Allah biidhnillaahi hadhowdii qalabeentooda dambe iyo hala gaarba hadeer wixii yani hawsha taagan wixii insha Allah deegaanka ku caawin lahaayeen wixii kaga qayb qaadan lahaayeen. hawshaas soo fulisay mahad ka gaarto baan leeyahay. hantida ay ku baxsheenna ilaahay xoolo khayr hawga dhigo meel khayr Allah ku gaarsiiyo baan leenahay. waa ka ducaynayna ma garat wixii annaga nagu aadan bagcad bixinta u horeyso. bismillaahi raxmaani raxiim biyaha jiraan baabuurta jidho bismillaahi raxmaani raxiim xoogu jiro haddii intaas oo itaalka iyaga ah waa ka qayb qaadanaynaa. qayb libaax baanu ka qaadanaynaa haddii idanka alla ka dhigo. muslimiintii hawshaa ka qayb gashay oo dhalinyaro ahayd oo culimo ahayd oo waxa weeyaan deegaanka reer Baargaal ahayd oo suldaanku hogaaminayay amase islaamka muslimka islaamka ahay oo hawshaa ka qayb galay waanu mahad celinaynaa. waxaanuna ka codsanaynaa hawshii annagu wixii aanu awood karo diyaar baanu nahay. wixii dhiman oo hadda naga dhimanna in macnaha waxa weeyaan halka aan looga harin hawsha meesha ay ka socoto. annaguna waxa weeyaan waxaanu nahay diyaar. hawshaasna waxa weeyaan waan muddo gacantaanu ku haynaa. wixii hadeer aanu macnaha awoodnana waa qabanaynaa iyadoo aan hagar lahayn. muslimiintana waxaanu ka codsanaynaa ama bulshada ama dhalinyarada ama dadka hawsha ay soo qalqaaliyay in sida ugu macnaha fiican hawshaas ay ku dhamaato. waxaan halkan baaq uga dirayaa bulshadii deegaanka Baargaal qurba joogday tahay hadday ganacsato tahay
reer qoraxaad waa aragtaa nin baahida ay u qabaaniin magaalada intaa leeg oo soo koraysa oo soo kobcaysa baahida ay u qabto maanta inay MC hesho xarun caafimaad oo caruurta lagu dabiibo dumarka iyo haweenka iyo xamilooyinka la geeyo idba waa garan ka dhaaniin magaalo aan intaan lahayn dhibta ay qabto rafaadka ay qabto marka insha allahu ilaahay waa inay soo siiyey waa garanay inaynu dhibtaas dadka la qaybsano kana saaro waa inaga hawsha bilowna feesiga horeeyana alaabtii lagu dhisay labadii qol MCH-ka aynu isu xilqaanay aynu fulinay alaabtina la soo gado la keenay odayaasha gudoomeen iyagina wixii itaalkooda tabartooda ay meesha ka sheegeen diyaar leeyihiin waxaan leenahay marka walaalaha Soomaaliyeed iyo wixii muslimiina iyo dadka deegaanka soo jeeda oo khaasatan arintan ay saameynayso hadde wali hawshu farikama qodna hawsha halka laga sii wado waxa dhiman waa gacantii iyo MCH-ki in la istaajiyo qalabaynteedii iyo shaqaalaha hadhow insha Allah hawsha waxa u xilsaaran kulay wasaaradda caafimaadka iyo isuduwaha gobolka sida xildhibaanka day uu sheegay Dr. Jibriil oo fariintaasna insha Allah wana waa xoojinaya waa gaarsiinaya gudoomiyaha caafimaadka degmada Baargaal iyana wixii tabarteeda ah tan qalabayn iyo la gaarin horta inayna insha Allah fariintan waa gaari doontaa inay ka qayb qaadato